markaana deegaano badan oo ka tirsan bariga Afrika ayaa waxaa sanadihii ugu dambeeyay laga soo warinayay biyo yari baahsan oo saameysay dad iyo dunyaba. inta badan deegaanada Soomaalida waxa ay dadka xilliga jiilaalka u baxsan jireen ceel biyoodyo qarniyo ka hor la qoday. tusaale ahaan ceelka Baran waa ceel biyood caan ka ah gobolka Sanaag oo waxa lagaga soo aroori jiray deegaano halkaasi ka fog oo biyaha ceelkaasi waxaaba ku baxay oraaho dadku qaar adeegsadaan oo ay ka mid tahay biyo la hubaa waa Baran. waqtigan la jooga ceelkaasi sidaas loogu tiirsanaan jiray waxaa ka ooman magaalada oo biyaha lagaga soo dhaansho dhul u jira ilaa 120 kilomitir. haddaba dhibaatada magaalada ka haysata biyaha waxaa warbixintan ku eegaya wariye Maxamed Xasan Dhalo. dhawaqa aad maqlaysaan waa shimbiro xilli aroora dul haadaya ceelka Baran oo ka mid ah kuwa jiraaga ah ee ku yaal gobolka Sanaag. waxa uu ku yaal meel to ka bilowdo hoosna uma qodna waxaana ku hareeraysan gidaar dhinacyadiisa laba ka mid ah waxaa ka taagan laba daarood oo duugoobay kuwa oo ay 100 sano ka hor dhiseen quwado kala qabsaday sida uu ku waramayo Cabdalle Aadan Cabdi oo ka mid ah dadka deegaanka. waxaa ka dhisnaa labada burji oo waaweyn oo midna uu dhisay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan qalcadda tan uu dhistay oo ugu talagalay in ciidankii daraawiishta ahaa ay ka dhigtaan hoy biyahana ay xirtaan si dadkii cadowga ah oo la dagaalamay uu biyaha uga qabsado biyo la'aan ugu dhacdo isu soo dhiibaan. waa laga qabsaday daraawiishtii waxaa la wareegay ciidankii gaarhayaha ee Suldaan Maxamuud Cali Shire dabadeedna iyana waxay dhiseen qalcad le'eg oo dhinaca labaad ay ka dhiseen. xilligaas waxa uu lahaa biyo badan maanta se wax sidaas kuma jiraan waxaana cidla taagan oo ceelku ka durkay tuubo bir ah oo biyaha gaarsii jirtay laba taangi oo magaalada u sii gudbin jiray. wuxuu ahaa ceel mahwiya oo ay ku nool yihiin 30 kilomitir oo isku wareega ummadda ku nool aan biyo kale aanay lahayn. ceelkan maahe ceelkaas wuxuu deeqi jiray ciidamada fardaha xoolaha nool iyo dadka bay isaga biyo u ahaa. taariikhdaas wuxuu kula baxay biyo la hubaa waa Baran waayo biyo kale oo la isku hadlayn karaa geeyigan kama jirin. degmada Baran ee gobolka Sanaag waxa ay ka mid tahay kuwa dhismaya ee ugu dadka badan gobolkan. caqabadaha haysta ee ugu weyna waxaa ka mid ah biyo la'aanta halka ka jirta. booyadahan isdhaafaya ceelasha ay ka soo dhaamiyaan bilaash maaha sida uu noo sheegay Cabdikariin oo subaxdan ka soo istaagay Afurur oo Baran u jirta 120 kilomitir. awsana shishadiisa laamiga loogu tagaa dabadeedna ceel daahir baanu ka degnaa 30 kilo rafo misna basi garacna taayirka banjaro iyo kamaanka jabay ciidaas iyo carradaas ka badanta dhibta ka imanaysa iyo hurdo la'aantu maalintii halka markaa ka tago labada waxaan soo galaa maxaan ku raad afarta habeenimo oo dambe baan soo galaa kadibna maxaan ku raad biyo $5 baan ku shubnaa isla ilbriqsi waa dhamaan dadkana waa ka go'aanin isla halkaas aan ku kala wareegnaan marka dhibta noocaas baa naga haysata. qiimahaasi lama wada awoodo waxaana jira qoysas ay ku adag tahay iibka joogtada ah ee biyaha sida ay sheegtay Kaltuun Maxamed oo ay qudheeda ku adag yihiin qiimaha biyuhu. qaarkood waxa dhacay inay booyadu diidaan foosto inay shubaan oo dadka foostada isticmaala oo aan haysanin barkadaha ay haraad u dhintaan mararka qaarkood ay tiin qaataan oo dad barkad la aadaan maray ka soo helaan iyo maray ka soo wayn dadku bini'aadan qayb oranaya ma haysano nooguma jirto marka saasay u adagtay xaaladda biyo. magaaladani waxa ay ku taal dhul quraf ah oo bannaan xigeena afarteeda geesna waxaa laga qoday riigag laguma se guulaysan in biyo laga helo oo la baajiyo booyadaha bari ka soo dhaasha. gudoomiyaha degmada Baran Axmed Maxamed Timir ayaa BBC-da la hadlay. annagu ka maamul ahaan dadaalkeeda waa ku jiraa insha Allah inay si magaalada biyo heli lahayd laakiin bulshada lafteeda waxaan rabnaa inaan arinta ku baraarugsan tahay sida ganacsatada kale inay maartay qurba joogta inay iyaga laftooda qayb ka noqdaan si magaalada biyo u heli lahayd. magaaladu waa magaalo weyn hadda oo maartay runtii koreysa bulsho badan ku nooshay. waxaan ognahay inay maartay nolosha asaasiga ee meelaha maartay deganaanshaha kowka inay tahay biyaha iyo tahay wixii lamida. waxaa isbedelay biyahan yar ee ceelka ku haray midabkooda waxaana maalin walba ka dhaaminaya gaari gacanlayaal magaalada geeya. looma isticmaalo noolaha iyo dadka nool inay hadda cabaan sababtu tahay wuu raagay wuu wasakhoobaa markuu sida u raago laakiin waxa loo isticmaalaa wixii hawl fududeynaha oo ka kharash badnaa biyaha kale ee la cabayay ee dadku ay quudanayaan hadday noqoto weel dhaqi guriyo dhaqi alaab dhaqi suuliyo dhaqi wixii nadiifinta oo nadaafadii magaalada rushayntii guriyo dhiskii daara dhistii dhooboqoyntii shamiitoqoyntii waxa soo dhan isaga magaalada u haya oo magaalada ku dhismaysa. magaaladan badi guryuhu waxa ay ka siman yihiin baraago bannaanka ku yaal oo majarooro ku fararaan midaas oo ay sababtay duruufta biyo yaraaneed ee halkan ka jirta. waxaase la isweydiinayaa intee Barani ku jiri kartaa xaaladan. Maxamed Xasan Dhalo Baran. waa uu mahadsan yahay Maxamed Xasan Dhalo oo warbixintaasi markaasi ka soo diray halkaasi.